بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سبحانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن ايال iyo marweyn mar kale ku soo dhawaada warbaahinta SMC war degdega arinta madaxweyne Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur oo caawa loo ballansana in loo shiro isla markaasna go'aan laga soo saaro soo deynta madaxweyne Mukhtaar Roobow shirkii caawa loo ballansana waa uu baaqday waxaana baaqashadaasi mas'uul ka ah magaranaysa gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed ambassador Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo awoodda labaad ee dalka ah oo lagu ballansanaa in qadka telefoonka uu soo galo waa uu gooyay annagu maalmahan waxaan ka dhawaaqaynay in xariga Mukhtaar Roobow sii deyntiisii dadka gadaal u dhigaya ee ka cagajiidaya number 2 uu yahay walaalkiisii Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Mursal oo Turkiga ku sugan caawa oo lala ballansanaa gurigiisii shirka in lagu qabto telefoonkii waa uu gooyay waa la waayay uu qaban waayay xalay baa la ballamiyay shalay baa la ballamiyay shirka ilaa xalay baa la qabaqaabinayay telefoonka waa uu gooyay Maxamed Mursal waxaad ka fahmi kartaan marka dibindaabiyada heerka ay gaarsiisan tahay Mukhtaar Roobow dadka uu godka ugu jiro in walaalihiisa ay yihiin uu number 2 yahay garanaysa Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waa wakiilka ugu weyn digil mirifle dawladda Soomaaliya ku matalay oo umiyad dhan ee Maylan ugu sareeya laakiin Maxamed Mursal xagee buu hadda ku sugan yahay hadda ayuu diyaarad soo raacay Turkiga hadda ayuu ka soo baxay waxaana uu ku sii jeedaa Master Walinji magaalada Muqdisho ee Jamhuuriyadda Mayland ayuu ku sii jeedaa isagoo baajiyay shirkii cawada Mukhtaar Roobow walaalkiisii looga arrinsan lahaa sii deyntiisii marka sidaasi daraadeed hadda aan idin la hadlaayo ayuu hawada soo galay Turkiga ka soo baxay uu awoodi karay maalmo ka hor inuu yimaado Muqdisho ajandaa ugu weyn ee magaalada Muqdisho Soomaaliya miiska saaran waa doorashada Soomaaliya iyo xariga iyo sii deynta madaxweyne Mukhtaar Roobow waay waxaan idin sheegay in qadariyiinta maalinta Khamiista ah ay ka soo dhoofayaan Dooxa oo guddiga dhexdhexaadinta arinta madaxweyne Mukhtaar Roobow beritoolena la rajaynayo habeen dambe inay xamar u soo hoydaan iyaguna marka sidaas daraadeed shirkii waa uu baaqday Maxamed Mursal baa gooyay telefoonka u gooyay haddana hawadu ku soo jiraa waa inuu yimaadaa
caawa xilli dambe beritoole muqdisho waad ku arki doontaan haddii ilaahay uu samo keeno maxamed mursal haddii waliinji luuqadiisa halkaas ay martay dacsiis lafta gareen iyo ninka la yidhaahdo atabaacdiisii xildhibaanada digil mirifle caawa waxay la shirsanaayeen maxamed cabdilaahi farmaajo ayay villa soomaaliya kula shirsanaayeen soomaali kale kuma jirin rooble ayaa ku biiray shirkaasi farmaajo iyo lafta gareen iyo rooble iyo xildhibaanada digil mirifle villa soomaaliya caawa ay u camiran tahay ballantooda ama wada hadalkooda waxaa weeye laba qodob hadday fadhiyaan hadda aan idinla hadlayo now waxaan u malaynayaa saacadda geeska afrika waxay garaacaysaa 12 iyo 23 daqiiqo rooble maxamed mursal iyo ma arkayse macnihii lafta gareen iyo xildhibaanada digil mirifle mayland way wada fadhiyaan kulankooda rooble hadda ku biiray waxayna ka wada hadlayaan laba qodob qodobka sii daynta madaxweyne mukhtaar roobow sida laga yeeli karo oo sida runta ah arrintiisu sara sabaynayso dhaqaalo badanna lagu bixinayo siyaasado fara badan oo iska soo horjeedaana ay ku dhagan yihiin hadday ahaan lahayd kablalax oo la isku dhaho harti iyo absame ogaadeen iyo qolada la yiraahdo hawiye oo iyaguna taagan asendooyinkii way u dhamaatay haddii mukhtaar la soo daayo raxaweynta aan ku tumanayno way noo dhamaatay marka labada qodob haddaan sharaxo qodob waxaa weeye mukhtaar roobow soo dayntiisii maxaa ka imaan kara seen u daynaa maxaan ka yeelnaa qodob waa kaas qodobka labaad waxaa weeye doorashada sidii codadka mayland 77 cod gobolkaasi ugu awooda badan farmaajo uu u heli lahaa iyo sidii loo soo saari lahaa siiba labada meelood ee heshiiska ku taalla gobol walba doorashada in lagu qaban doono labada goobood waxaa awal la doonayay baydhabo iyo baraawe in lagu qabto laakiin abdicasiis lafta gareen waxa uu doonayaa in labada goobood lagu doorashada loo asteeyo baydhabo iyo xudur sidaasuu doonayaa baay iyo bakool si kale haddaan u dhigo baraawe maxaa looga wareejinayaa oo caasimadda mayland ah arrintaasi waxaa diidan walaalaha ilmo raxaweyn laba waaye waa digil iyo wiilka kale ee la yidhaahdo mirifle digilka oo u badan shabeellada hoose ayaa wuxuu soo jeediyey baraawe yaan doorashada naloogu qabanin baraawe yaan wax doorashaa naloogu qabanin doorashada naloogu qabto magaalada baydhabo saa awgeed labada meelood inay noqoto xudur iyo baydhabo maxay baraawe u diidayaan in walaalaha digil loogu qabto doorashada waxay u diidayaan in dhibaato dhanka shariif xasan ay kagala kulmaan shariif xasan oo shaqaale u ah hawiye oo sida runta ah baraawe haddaba macnihii ay joogaan ciidamada habargidir siiba guutada 6 oo uu taliya ka yahay aadan laba afle oo cayr ah taliyaasha ururada oo dhan dhammaantood ay habargidir yihiin soomaali kale aan ku jirin hawiye ay wada yihiin oo meeshaasi qabiil ahaan tuutaa dowladda ku haysta ayay kala cararayaan walaalaha digil oo waxay isleeyihiin shariif xasan in uu u adeegsado hawiyaha u shaqaynayo hadhow in caburin ay timaado xildhibaanada digil iyo miriflaa nadiifka inay soo bixi kari waayaan oo meeshaasi dhibaato ay ka dhacdo oo mayland siiba digilka kuraastooda rasmiga ah la boobo shariif xasan kuwa uu keensaday in qasab ay ugu geliyaan qoliyaha hawiyaha marka sidaasi daraaddeed macnihii rabitaanka walaalaha digil ayaa dhahaya annagu baraawe hana looga wareejiyo
baydhabo hana loo geeyo adinkana miriflow majority-giinni xudur aada waayo marka la yidhaahdo ilmo raxaweyn digil oo walaalka weyn ah ama waalidka weyn iyo mirifle digilka sida ay u necab yihiin shariif xasan uma necba miriflaha qaar shariif xasan haddaba la shaqaysanayaa jira laakiin digil bannaankaasay ka joogaan shariif xasanna waxay u arkaan xataa odayaashii digilka 6 gobol wax ka soo dhisay ninkii maayafuulkii shabeellada hoose inta u dhaxaysa macnihii ku qalay inay macnihii isagu ka dambeeyey waxay aaminsan yihiin amaba ay tahay ciidamadii kumanaanka kun ahayd baydhabo lagu tababarayay waagii shariif xasan in magaca kaliya hubka uu ku soo qaatay kadibna ciidamadii kala taga uu yiri oo jidka lagu qalay shabeellada hoose ee bay inta u dhaxaysa dhulkan inuu isagu dhiibay isbaarooyinka inuu isagu ku haayay taas ayay ka cararayaan marka sidaa awgeed master karasay oo maqaarsaar ah wuxuu rabaa in doorashada loo geeyo xudur iyo baydhabo caawa villa Soomaaliya keligii taliya farmaajo sidaas uu la fadhiyaa waayahay nimanka digilna xildhibaanadu way ku jiraan waxay hadda leeyihiin annagu ma rabno baraawe in looga dhigo labada meelood waa in baydhabo iyo macnii looga dhiga teena baraawe xagga macnii inaan la keenin hadda baraawe waayo gacanteena kuma jirto amni ahaan waxay gacanta ugu jirtaa hawiye walaalaha digilna saasay leeyihiin marka rooble oo ra'iisul wasaaraha iyo farmaajo oo macnii villa Soomaaliya fadhiya lafta gareen iyo wasiirka cadaaladda jaamac iyo xildhibaanada hadday shir ku jiraan way ku dheeraadeen villa Soomaaliya labadaas qodob ay ka hadlayaan sheekh mukhtaar soo deysmadiisi seen ka yeelna xagee loo maraa hadde daacadna kama wada ahan hadde ogow iyaga lafta gareen wuxuu isleeyahay haddii sheekh mukhtaar uu soo baxo dhibaato ku horseedi karaa waay maxamed mursal kulankii caawa ninka gooyay waay cuqdada uu mukhtaar roobo u qaba aniga waa garan waay mana dhaweyn hadduu hawada soo galay diyaaradda hadduu soo raacay maalmo ka hor shirka 20-ka intaan furmin ayaa la rabay inuu yimaado xamar labada ajanda miiska saaran sii deynta mukhtaar roobo in laga shaqeeyo iyo doorashada shirka 17 September labadaas ugu weey Soomaaliya ajandayaasheeda siyaasadda turkiga isku celiyay xalay waa la wacay shalay waa la wacay xalay inuu soo baxay ahay wuu baaqday si uu maanta u joogo haddana maanta macnii wuxuu yiri qadkan kaga qayb galaya shirka gurigayga lagu qabto hadda aan idin la hadlaayo telefoonkii qaban waay wuuna soo jiitay qadariyiinta oo qamiista soo baxaya ayuu isku beegayaa marka warka degdega waa intaasaan kusoo koobaynaa shirkii aad sugayseen in mukhtaar roobo caawa loo qabto xalay oo dhan iyo shalay la diyaarinayo iyo maantay waa uu baaqsaday camalkana ilaahay dartii u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe u arkayaa sahaydana badso safarka waa u dheeryahay xamuulkana iska yaree sababtay tahay kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan walaalayaal naftaan la isu dhiibaya la isma siine adduunku waa 2 maalmood haddii muuqaalka xiga ka horna la kala qaato idama la jannatul firdawsa laakiin meeshaan waxaa yaalla walaalkiisa qoorta kaga taagan hawiyi daaroodba maba haysan karaba mukhtaar roobo mukhtaar roobo walaalihiisa qoorta kaga taagan jufadiisa hadday tahay kuwa sheeganaya iyo haddii mursal uu yahay mas-uulkii ugu sarreeyay ee digli mirifle oo maanta talada ay ka go'do lafta gareen oo baydhabo la geystay iyo canaasiir lamid ah oo xildhibaano sheeganaya waa walaalka oo qoorta aad kaga fadhido waay marka saca jilaalka qofka iskale haddii saynta uu kaga fadhiyo ma kacaysade hawii daarood ma ku haysan karaan haddii adiga aadan walaalkaaga haysanin marka runta u noolow
ilaahay ma arkaysa dembiyadeenna ha dhaafo inta dulmanna ilaahay ha u hiiliyo kuwa dulmiga wadana ilaahay ha soo hanuuniyo firdowsa